بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan la sii wadaago fariin ay ii soo dhiibeen guddiga midowga walaalaha war culus ee beesha wacaysle fariintaas oo aan rabo inaan saraakiisha la wadaago guddiga midowga walaalaha war culus ayna dhaheen iga gaarsiiya ciidanka iyo saraakiisha ku sugan maanta bariga gobolka Galgaduud waxaan rabaa marka guddigaas inaan magacyadooda iyo wixii ay ii soo sheegeen intaba aan idin la wadaago guddigaas oo ka kooban 13 xubnood wakiilna ka ah midowga walaalaha war culus oo uu gudoomiye ka yahay Cornel Cabdiraxmaan Maxamed Casayr oo ku sugan dalka Sweden Nasr Aadan Umar Maalin oo ayuu ku sugan dalka Ingiriiska ahna aas-aasihii jikadan qalabkan lagu soo sameeyay Abbas Maxamuud Sheekh asigana degan dalka Turkiga حاو أحمد عيد أيضاً الدجان دلك إنجليزكا عاشو حسن شيخ أحمد عراي وأيضاً الدجان دلك إنجليزكا سمطلس حسين حيلة فرد دائرة أسيجان الدجان دلك مريكانكا آمينو نور أحمد والدجان أيضاً الجرماني محمد حسن توحو دجان أسيجان دلك إنجليزكا كيلو أحمد جوري دلك جرمالكا علي باشي محمد علي دجان سويدن أهنا وكيلك سويدن شرف حسين كلمية دجان دلك مريكانكا كورنيل عبد الله معو دجان أسيقنا مريكانكا مدينة الشيخ علي دجان أيضنا دلك مريكانكا ما محكيم أيضنا دجان دلك كندا انتاسي ووكيل لنا مدوغا ولالها ورعلوس وكوكيل ولاليه داغدان آذا أراكتين اسكو سو ديبي ويرعيدان كهالوغ جيو ديغان نذي لقبتينا aan bal tusno in ay dad leeyihiin oo maaragtay dad ayaga ka dambeeya inay jiraan sidaasay isku soo xilqaameen waxay ii sheegeen sidoo kale tood inay juhdi kala bixiyeen oo ay deegaano badan u diyaariyeen deeq waxay kale ii sheegeen inay juhdi kala bixiyeen oo ay rabaan deegaanada inay horumarkiisa ka shaqeeyaan degmooyin iyo deegaano kamid ah gobolka Galgaduud ay u diyaariyeen horumar oo caafimaad kamid yahay iskool ay kamid yihiin ceelal iyo hadii la gaaro deegaanadaas hadda la diyaariyayna waxa kamid ah degmada Galcad Ali Yabaal Ceel Maxamed Xaaji iyo Karantiil afartaas waxay u diyaarsheen iskool iyo MCAjiyo intaasna oo si sheeg ay ugu yiraahdeen horeyna waa u yimideen meeshan oo halganka horey u wadeen ku soo dhawaada fariintaas ayaa la ii soo dhiibay isbitaalka ceeldheerna horey u yimideen fariin hore xildhibaanada ay idin keeneen ayagay ka timiday oo midowga walaalaha war culus ay ka timido guud ahaan laakiin ayagu wakiilay ka yihiin dadku marka dad waxa jira xoogaa qalbiyada ka xanuunsanayee ayagu kama dhigna inay hantida dhiibeen kaligood laakiin waxay ka dhigan tahay inay wakiil yihiin dadna weligiisa wakiil yeela jiray ku soo dhawaada adinkoo isugu jira saraakiishii macawisleyda iyo saraakiishii ciidamada xoogga dalka guud ahaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba